بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. الحديث السابع، حديث كتضباط وكترسان سلسلة حديثتي صحيحة أهيد الإمام النووي كسوريي كتاب كيسي الأربعون النووية. xadiisyadaasoo aynu hore usoo sheegnay inay yihiin xulka diinta islaamka oo qofku hadduu 40 xadiis iyo mirarka ziyaadada ah uu magaran si fiican u qabto ay noqonayso inuu wax fara badan diintiisa ka fahansan yahay. xadiidka toddobaad waxaa soo wariyey saxaabiga weynaa abi ruqayya tamiim bin aws ad-dari. tamiim bin aws ad-dari waxa uu ahaa saxaabi aad ugu caan baxay xadiidkii al-jassaasa. xadiiskaas oo dulucdiisu ahayd in uu la kulmay waqtigii nebiga masiixu dajaalka ama dajaal cawar in la kulmay, markaasoo nebigu isugu yeedhay macsharul qowm, dabeetana uu arrintaa ka sheekeeyey ayaa markaa uu muxidayay saxaabigani caan ku noqday xadiiskii al-jassaasa. saxaabigani sanadii 40 ee hijriga ayaa waxa uu ku dhintay magaalo ku taala Falastiin, halkaasna waa ku aasan yahay. xadiidka bilowgiisa waxa uu odhanayaa can abi ruqayya tamiim bin aws ad-dari radiyallahu canhu ana النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. diintu waa naseexo. qulnaa waxaan nidhi liman yaa rasuula allah, yay u sugnaatay nasiixadaas? qaala waxa uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam lilaahi ilaahay ba sugnaatay, walikitaabihi iyo kitaabkiisa, walirasuulihi iyo rasuulkiisa, walia'immati lmuslimiin iyo ummadda muslimiinta cidda madaxda u ah, wa caamatihim iyo shacabkooda. marka xadiidkani waxa weeye waxa uu sheegayaa inay diintu nasiixo tahay oo cid kastaba ay magaranaysaa nasiixadeeda ku nooshahay. yani kitaabka ilaahay, yani diinta in maxay lagu dhaqmo, in rasuulka ilaahay maxay sunnadiisa la raaco, in a'immada muslimiintu ay maxay xukunka ay xukumayaan diinta ku dhaqaan, caamada in lagu xukumo diintu. marka nawaaxil xayaa oo dhan bay ku jirtaa. marka xadiisku xadiis yaro aad u kooban laakiin macnihiisu guud oo magaranaysaa sheegaya inay diintu nasiixo tahay oon cidina ka maarmahayn. xadiiska maanta intaas kusoo gabagabeynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.